ma ku nooshahay xaafadda Bidel Gamlo Oslo ama ma ka mid tahay dadka ku xiran ee isticmaala adeegyada bulsho ay bixiyaan xafiisyada waaxaha kala duwan ee dowladda hoose xaafadda Bidel Gamlo Oslo. Haddaba waxaa muhiim ah oo lagu wargelinayaa inaad ogaato in laga bilaabo bilowga bisha January ee soo socota sanadka 2024 ay goob cusub u guuri doonaan hal goobna isugu geyn doono qaybo badan oo ka mid ah xafiisyada iyo xarumaha bixiya adeegyada bulshada ee xaafadda Bidel Gamlo Oslo. Goobtan cusub ayaa ku taalo suuqyaraha Toyen Torg ee ku yaal agaarka boostajada Teebaanka Toyen, adreeskuna waa Hagagata 32. haddaba adeegyadan ayaa guuri doono 2 bisha January. adeega dhalinyarada ee Ungarena, adeega caawinta qoysaska ee Osrielba, adeega gacan qabashada caafimaadka dhalinyarada ee Fakt adeega iskaashiga caafimaad ee kalkaalisooyinka iyo qoysaska ee Saman Bavai, adeega caafimaadka muhaajiriinta ee Migration Health iyo adeega ka hortagga cudurrada faafa ee Spitaban. 4 bisha January waxaa guuri doona adeega rugta caafimaadka dhalinyarada ee Health Station for Ungdom. sidoo kale 16 bisha January waxaa guuri doono rugta caafimaadka ee dumarka. sababta ay adeegyadan ugu guuriyaan goobtan cusub ee la isugu geynayo ayaa ah in qofka adeegyadan isticmaalo ama ka faa'iideysto loo fududeeyo helitaanka iyo ka faa'iideysiga adeegyadan, maadaama hal goob la isugu keenayo xafiisyo badan oo bixiyo adeegyo kala duwan. goobtan cusub ayaa ku taal agaarka baxdada Toyen Teebane oo ka mid ah boosajooyinka ugu waaweyn uguna mashquulka badan ee isku xiro gaadiidka dadweynaha ee Oslo, waana goob ayna fududahay in la helo. goobta cusub ee adeegyadan ay u guuriyaan ayaa ku taalo deegaan wanaagsan suuqyaraha Toyen Torg, waxaa kale oo ku yaalo biibitooyin wanaagsan, maqaaxiyo, dukaamo iyo maktabad. waxaana goobtan cusub ee adeegyadan u guureen leedahay tabeelooyin waaweyn oo kuu fududeynaya inaad si fudud u hesho meesha aad u socoto. dadka imaanaya adeega caafimaad ee Toyen Health ee caruurta wata waxaa albaabka u yaal meel weyn oo ay dhigan karaan baabuurta caruurta lagu riixo. shaqaalaha adeegyadan bixiyo ayaa ku wargelinaya inay farxad u tahay inaad ugu timaado ayna kugu soo dhaweeyaan goobtan cusub ee la isugu geyn doono adeegyadan kala duwan. wixii faahfaahinaa waxaad ka sii akhrisan kartaa linkiga hoose. mahadsanid.